hogaamiyaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu gaaray magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya. halkaasi waxa ku soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan xukuumadda Abiy kuwa oo kala hadlay qorshihiisa safarka iyo waxa uu u tagay halkaas. waxay sidoo kale iska wareysan doonaan xaaladda gobolka, istiraatiijiyadda iyo sidoo kale qaabka loo wajahayo hannaanka siyaasadeed ee gobolka. markuu halkaasi tagay waxaa soo dhaweeyay wasiirka maaliyadda dalkaasi Axmed Shide, waxayna ka wada hadleen qodobada ugu suurtagalsan oo ay dhinacyadu ay tahay inay diiradda saaraan si xal waara looga gaaro caqabadaha dalkani ku horgudban. ilawareedyo muhiim oo si dhow ula socday kulanka ayaa xaqiijiyay in dadaalada halkaasi ka socda ay qayb ka noqon karaan hannaan lagu doonayo in lagu tiro hannaanka qorshaysan ee lagu doonayo in lagu xoojiyo doorashooyinka waddankan. waxaa sidoo kale Itoobiya ay wajahaysaa caqabado dhanka ammaanka kadib markii kooxda hubeysan ee balaagada TPLF ay dagaal ka qaaday waqooyiga dalkaas, waxaana muuqanaysa in Abiy uu raadinayo xulufo gobolka. waxaa sidoo kale lagala hadlayaa Abiy qorshe ku aadan sidii Itoobiya ay maalgasho lahayd qaybo ka mid ah Somaliland kadib warqad ay ka heshay dowladda federaalka oo kula heshiiday dowladda Itoobiya in qayb ahaan